waxaan ku jirno waa jihaad dalka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeedba ay isaga dulqaadayaan nimankan argagixisada ah ee runtii curyaamiyey jiritaanka ama shaki geliyay jiritaanka midnimada iyo horumarka dalka Soomaaliyeed dalka Soomaaliya waxa ay dadku tusaale u yihiin aanu sheegnay Soomaalidu inay tusaale u tahay in aan dadkeeda la haysan karin in aan fikrad qaldan lagu haysan karin iyo in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu yahay ciidan dadkiisa haysta iyo dadka runtii Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed ee xaq u dirirka gobolada ka dirirayo runtii iska dulqaadayo nimankaas dowladnimada iyo Soomaalinimada iyo muslimnimada inta ka soo horjeedo marka inta leenahay waxaan ula jeednaa dad baa waxay ka shaqeeyaan sidaan aragnay inay maalin walba dhaliilo sheegaan oo yiraahdaan maxay ahayto dalkii khatar buu ku jiraa waxaa maaragtay meel helba saas la yeelay ciidanka inta maaragtay dhibaatada gaartay dagaal waa dagaal guul iyo guul darro uu leeyahay laakiin mabda yaalla meesha waxay tahay in dadka Soomaaliyeed marna aysan raali ka noqonayn dalkooda inuu afduubnaado koox yar oo duurka ku jirto oo maxay ahayd aan wax dalkan u haynin jiritaan iyo maxay ahayd madax banaani intaba waxa weeye sida waxaan ku dhiirigelinaynaa sida shaqaalahayga wasaaradda shaqaalaha u shaqeeyaba ay runtii ay sheegeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wax kasta oo u baahan yahay oo naf iyo maal ay ugu horeyso waana ku mahadsan yihiin runtii sidaad arkayseen shaqaalaha tirada badan ee halkaas soo istaagay runtii go'aansaday inay u hiiliyaan qarankooda waana ka mahad celinaynaa waxaan ognahay qof kasta oo Soomaali ahna maanta inuu aragtidaas qabo dalkan dal horumaro oo dadkiisa ay ka faa'iideystaan nabadiisa dhaqaalihiisa quruxdiisa bi'adiisa wanaagsan ay xaq u leeyahay ka faa'iideystaan weeye marka kulanka waxa uu ku saabsanaa runtii xaggayga mahad celin buu ahaa aan u mahad celinaa shaqaalaha wasaaradda oo runtii initiative-ka la yimid aad iyo aad u wanaagsan waan ku dhiirigelinaynaa dhammaan qeybaha dowladda ay ka kooban tahay in runtii la garab istaago ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada wax iska caabinta ee gobolada dalka joogo dagaalku waxaa loo qayb qaataa af iyo adin intaba waxaad moodaa kuwa warxutashiilka ah waxaa ka badan inta Soomaali ah wanaagsan runtii wax saxa ka sheegaysa waxaa dalka ka jira dalkan wuu madax bannaan yahay wuuna madax bannaan doonaa dowlad Soomaaliyeed oo wanaagsan oo xoog leh oo dhaqaalaheeda iyo ciidankeeda iyo dadkeedaba ay isku filan yihiin way jiraysaa wayna jiri doontaa weligeed marna shaki ma gelayso magaalada Muqdisho waa aragteen maanta nabadda iyo quruxda iyo horumarka iyo wanaagga ka muuqdo waxayna ku timid runtii gabdha iyo wiilal habeenii maalin usoo jeedo inay amnigeeda sugaan inay qurxiyaan inay hagaajiyaan oo horumariyaan Soomaali baa leh Soomaaliya way guuleysanaysaa wayna hore u soconaysaa xukuumadda dan qaran ugu horeeya prime ministerka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda la ogsoon tihiin waxa ay hore kaga jiraan dalkan horumarintiisa hadday ahaan lahayd dhinaca siyaasadda ood aragteen inay doorashooyinkii isdiiwaangelinteedii dalka bilaabatay oo runtii tallaabo aad iyo aad muhiim u ah jiilasha soo socda oo Soomaaliyeed muhiim u ah dowlad dhiska Soomaaliyeed waxaa kaloo ay hogaaminayaan amniga dalka oo aad ogtihiin furmaha u taagan yihiin dalkana sanadkii lasoo dhaafay labadii sano lasoo dhaafay in badan oo kamid ah gacanta al-shabaab laga bixiyey haddana inta hartee laga bixin doono haddii ilaa yidhaaho waxa ay horseed u tahay xukuumaddan dan qaran isbedelada xagga dhaqaalaha dalka oo runtii aada moodid in si fasta oo aada deg deg ah uu ku socdo runtiina meel wanaagsan laga gaaray